haddaan anigu qaabayn lahaa dunida qeybteenna qaxar iyo dhibaatiya malaa qulub ma joogeene qalalaase iyo may jireen qayladhaantani qabqab dhaafe waagii baryaba qiiq ma huriyeen qabiil laguma dhaateen dal aan qaadigii ahay. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل سيدا ونو شيغاي بارتو marka hore background ka lagu horeeyay intaan meel kale la taginay insha Allah marka waxaan isku day doonaa in background keena wax weyn sheegno si aan soo barano intaynaan background-ka gelina marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa runtii maxamed oo ku magac dheer inta badan cabdibashiir oo runtii ninka waxa weeye platform-kan inta badan aan fadhiisanay aqoonta la isku darsado waxa weeye ninka keenay ah sidoo kale waxa barnaamijka daadiyaasha barnaamijka waxa weeye marka 24 saac oo qomaan ama u taagan runtii hawsha qaabka u gelaya iyaga lafsigooda waan mahadnaqayaa sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa runtii ka soo qaybgalayaasha runtii mawduuca caawakan markaan intaa ka imaado runtii aan salaan guud kaga imaado anoo ku salaamay salaanta islaamka wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu waxaan toos u geli doonaa insha Allah background-ka markaan leeyahay intaynaan mawduuca u gelin runtii background-kaygu waa iska dee schooling waxa weeye process wax la dhaawaa inta badan dadku malaha waxa laga soo warramaa marka marxaladii dhexe marxaladii hoose iyo tii sare ilaa jaamacada la gaadho kulli marxaladeedii hoose waxa weeye dugsiga albaxriin la yidhaha baan kusoo qaatay haaf ka mid ah waxa weeye xataa marxaladii dhexe inkastoo markii dambe aan u gudbay iskuulka imaaraadka la yidhaha runtii New York ku yaala isla secondarygii markay ahaydna waxaan ku soo noqday dugsiga laftigiisa Bahrain baan ku soo noqday 2014 dabayaaqadiisii oo 15kii meelahaas waxa waxaan bilaabay marka jaamacadda waxa kulliyadda veterinary anoo markaas sanad fadhiyay waxa weeye ka bacdi runtii veterinary waxa kulliyadaas way xaga dhamaatay waxa weeye sanadkii dhaweyd hadda marka waxaan kulliyadda barbar waday kulliyad kale oo ina agriculture la yiraahdo oo isla waxa weeye new generation ka wado ina iga dhamaanaysa hadda la yiraahdo rabadaanta hadii la yiraahdo soo kale waxaan bilaabayna bishii 12 ee sanadkan master human resource management oo ka bilaabayna waxa weeye new generation marka kulli saa waxaan ku noqonayaa marka dabaqada sare wax laga eego waa double degree master runtii master candidate marka runtii inta kaga imaado isbarashada iyo hadii la leeyahay background-ka runtii mawduucan ku hadlaynaa waa mawduuc very sensitive mawduuc runtii current iyo hadda wax taagana isla markaana runtii caalamka kaga qaylisiiyay inaga laftigeennuna inaynu marka balaarugno oo aynu wax badan bal hadii ilaahay leeyahay alla bay nagu ma keenee si haddana taxadirkeeda iyo hawleeda aynu yeelano wax weyn looga baahan yahay bulshaduna runtii inay dhuga nugulaato oo wax weeye mawduuca kan oo meel dheer ku dhacana marka runtii aan u baahanahay الموضوع runtii ka wadlami doona waxa la yiraahdaa Wuhan coronavirus ama magacan dambe way bixiyeen novel coronavirus oo dabcan runtii virus ka dilaacay wadanka China gaar ahaan magaalada waxa magaala caasimadeeda Wuhan la yiraahdo intaynaan mawduuca u gelin marka runtii direction badan baynu ka eegi doonaa waxaan soo qaadan doonaa runtii 4 main points oo afar qodob runtii muhiim ah baynu ka eegi doonaa waa qodobka koowaad waan eegi doonaa coronavirus wuxuu yahay marka koowaad halkaas aynu eegi doonaa insha Allah wuxuu leeyahay runtii objective-kan marka wuxuu noqonayaa insha Allah in marka hore coronavirus ka eegno inagoo ka eegayna xaguu ka yimi marka hore waxani marka labaad waxa weeye laftiga virus-kan muxuu yahay virus laftigiisa in dadka wax xaqiijina way wax gurigiina waxa uga timaadeen wax badan idinka baxo halkan dadka lagu wareeriyay virus-ka markan sheegna dabadeed waxaan isweydiinaynaa waxyaabihii kale xanuun oo dhan laga eegi jiray ee transmission-ka wixii loo jiray xanuunka la soo gudubka marka laga tago ma jira prevention and control waxa weeye laga hortagi karo ama cudurka lagu control ma jira waxaan ka eegi doonaa symptoms-ka wixii loo jiray calaamadihii waxa weeye xanuunka lagu garan jiray baan eegi doonaa awaakhirka waxa weeye waxaan eegi doonaa treatment-iga halka marka coronavirus-kan kaga bixi doonaa qodobo yar oo runtii arsalay dadka way ka dhex guuxayaan isla markaana anigu waan istusay baan insha Allah iyaga laftigoodana gali doonaa oo ay kamid yihiin ma ina soo gaari karaa coronavirus-ka waxa la runtii China ka dhacaya maadaama gobolka kale ama wadamo kale oo caalamka waxa ku yaala uu soo gaaray runtii waxaan iyaga kale waxa eegi doonaa hadii la yiraahdo laftiga xanuunkani ma yahay shirqool waxyaabo isweydiin doona runtii caawan ka faa'iideysan doono xanuunkan China waxa ka dilaacay shirqool la maleegay ma yahay waan isweydiin doonaa insha Allah waynu ka jawaabi doonaa hadii la yiraahdo su'aalahaas awaakhirka waxaan eegi doonaa wardin islaameen nahay diiniyan dadkeena islaamkii maxaan ka qabnaa xukunka kan waxani muxuu yahay dadku maxay wax weeye islaamkii maxay believe gareeyeen maadaama inuu China wax weeye waaqac wuxuu ka sameeyay wax weeye bilo ka hor ama dhamaadkii wax weeye sanadkii tagay kule afarta marka meelood baynu ka eegi doonaa insha Allah inaan ku horreynaa coronavirus hadii aanu coronavirus virus kala yiraahdo muxuu yahay
waan marka hore eegi doonaa insha Allah horta meeshan uu ka dilaacay waxa la yiraahdaa Wuhan coronavirus waxa weeye Wuhan waa gobol ka tirsan gobolada waxa weeye China waxa weeye ama caasimadaha waxa weeye China kuwa ugu ballaaran gaar ahaan ayaan oranay gobolka Hubei la yiraahdo Hubei macnaheedu ku leeyahay waa gobolada wadanka gobolada ugu waaweyn buu ku jiraa Hubei ban marka iyadu kamid tahay marka Wuhan baa la yiraahdaa oo waxa weeye inta badan waxa lagu leeyahay waa caasimada gobolka Hubei inagu inta badan waxa jira wax la yiraahdo dhinaceenan waxa weeye demographic waxa weeye decentralization maamul daadajinta waxa weeye inta badan degmooyinka waxaan isku haysanaa inta badan sidii waxaan isku haysanaa qolooyinka artiska way fadhiyaan waxa weeyaan wixii 50gii 1950gii baan isticmaalnaa laakiin caalamku waxa uu ka tagay iminka gobolka uu ka dilaacay Hubei baa la yiraahdaa magaalada madaxdiisa caasimada baa Wuhan la yiraahdaa markaa Wuhan marka waxa ku nool wax way guud ahaan hadaan iyada in yar ka warano horta laba weebi ayaa mara oo yiin wax way hands iyo sink la yiraahdo runtii labadaas kala bara waa gobol marka ay ku nool yihiin 11 milyan waa wax way marka leenahay wax way Hubei halkaan ku yara noqonay waa gobolka caasimada gobolka eegada oo noqon karta wax way degmadan Maxamuud Haybo kale ay Wuhan noqonaysaa barta xanuun ka dilaacay 11 milyan baa ku nool waa China wax way dad khaariq weeyaan marka runtii halkaan kaga tago waxaan eegaynaa runtii coronavirus ka waxa la muxuu yahay coronavirus ka leeyahay marka xooy markaynu sheegayno waynu eegnaa kow horta virus-kan muxuu yahay virus markaanu qeexno virus-kan wuxuu kamid yahay sida inaguba qoomiyada u leenahay baa ilma qabadayga inta badan cudurrada keena qoomiyada u leeyihiin virus-kan wuxuu kamid yahay qoomiyada la coronavirus family-gaas ku jira guud ahaan marka viruska la qeexayo ama la qaybinayo sida bacteria gram positive bacteria gram negative loogu qaybiyo ayaa viruskana waxa loo qaybiyaa laba qolooyinkii medicine waxa laga yaabaa qaar kood fadhiyaan waxa loo qaybiyaa runtii RNA virus iyo DNA virus aan qana waxa weeye genetic material waxa marka hidisidayaasha waxa laga hadlayo waxa weeye hidisidayaasha DNA virus waxa DNA ba jirta Soomaa marka waxa weeye marka viruska la qaybinayo waxa loo qaybiyaa DNA virus iyo RNA virus coronavirus wuxuu ku jira marka kuwa la RNA viruska halka DNA viruska waa garanaysan box viruska kala kamid ah DNA viruska markay joogno box viruska waxa xanuunkii box keeni jiray waa kamid ah herbaska waxa kamid ah runtii keenay cudurradan waxa weeye foodborne disease delta kamid ah RNA viruskana waxa weeye RNA viruska hawl badan oo kii Ebola keenay xataa fiila loo oran jiray fiila viruska isaga laftigiisu RNA virus uu kamid yahay coronaviruskan maanta la arkayaana isaga laftigiisu marka wuxuu kamid yahay ciidan kala dha RNA viruska hore ma loo arkay marka historygiisa hadii ku noqono viruskan waxa weeye markii ugu horeysay la identify gareeyay ama la gartay waxa ay 1960kii at that time wuxuu keenay speech baa jiray 22GE la yiraahdo ama 22GE la yiraahdo speechka waxa uu waaga la bartay wuxuu keenay cudurka la common cold iska caadiga duriga soo garmaysaan cudurka inta badan duriga la laabo keenay mar labaad way jireen marar kale waxa dhexda ku jiray laakiin kuwa ugu halisan bay eegaynaa mar labaad cudurkani wuxuu ka dilaacay 2013 ama 2003 aan raahdo 2003 Kooriyu ka bilaabmay waxa weeye xanuun halis baa dhacay nooc kamid ah species-kan coronavirus-ka ayaa dilaacay oo magaciisa la yiraahdo MARS waxaan isku weydiinaa su'aasha MARS maxaa laga soo gaabiyay MARS waxa laga soo gaabiyay waxa la yiraahdo waxa weeyeen ama la yiraahdo SARS waxa laga soo gaabiyay severe acute respiratory disease oo esta waxa laga soo gaabiyay severe eeda waxa laga soo gaabiyay acute arta waxa laga soo gaabiyay respiratory esta waxa laga soo gaabiyay syndrome xanuunkan that time markuu bilaabmay runtii caseska waxa weey lahayd waxa 8000 iyo siliyo waxa weey hadii la 89 qof ku dhacay waaga waa 2003 waxa weey 2003 weey runtii inta qof uu dilay waxa weey mortality-ga waxa weey noqday waxay noqdeen 800 qof at that time mar labaad ayuu xanuunku wuxuu ka dilaacay meeshan la yiraahdo Sacuudiga ka Sacuudiga ka dilaacay waxa loo bixiyay MARS kii hore muxuu MERS baa kii hore wuxuu ahaa SARS oo inuu soo qaybinay ama inuu waxa laga soo gaabiyay severe acute respiratory disease kan dambe 2012 ka dilaacay waxa bariga dhexe gaar ahaan Sacuudiga ka dilaacay waxa loo bixiyay isna MERS oo wuxuu kamid ahaa nooc kamid ah waxa virus-kan la yiraahdo coronavirus MERS maxaa laga soo gaabiyay isaga laftigiisa aynu eegno MERS waxa laga soo gaabiyay waxa la dhahaa Middle Eastern Respiratory Syndrome baa laga soo gaabiyay oo runtii waxa isna cudurrada inta badan respiratory ama neef qaadashada qaybta sare waxa inta badan ku dhaca ka laftigiisa waxa loo bixiyay Camel flu waxaan u dunay isaga laftigiisa dad badan ayuu wax markaa dilay markaan ku nimaadnay species-yadiisa iyo noocyadiisa aynu nimaadnay Wuhan coronavirus-ka kan imika wuxuu dilaacay waa markii koobaad ee species noocaas oo kala la arko ama nooc kamida fayrasadaas wuxuu la arko weeyaan kayskii ugu horeeyay la arkay waxa ahayd waxa weeye 31 December waa dhamaadkii December ayaa qof waxa weey laga shakiyay isla markaana laga helay noocan coronavirus-ka
markan waxa weeye marka coronavirus kan joogno ama waxa weeye cudurkan aynu ka hadlayna runtii coronavirus at that time buu dilaacay waxaan u noqday runtii cudur ka duwan kuwii hore ee la yaqaanay hal shayna uu kaga duwanaaday markaas wuxuu kaga duwanaaday waxa la incubation period marka leenahay waxa weeyaan waa muddada xanuunku uu qofka kaga soo ifbaxayo ayuu xanuunadii kale kaga duwanaaday sababta marka caalamka inta badan dhibka ku keentay ama ay fahmi laayeen waa taas oo waxay sheegayaan qofka ibn aadanka cudurkani wuxuu ka soo bixi karayaa ama calaamadihiisu ay muuqan karayaan ama la ogaan karayaa qofkani cudurka inuu hayo markay 14 cisho gaadho macnaheedu waxa weeyaan 14 cisho wixii ka horeeya qofku waa carrier xanuunkii wuu sidaa uu gudbinaya maca dalika waxa weeye lama garan karo in waxa weeye cudurkan waxa weeye marka uu gudbinayo ama cudurkan waxa weeye calaamadii cudurka waxa weeye muujinayay kama soo ifbaxayaan markan wuxuu halka ka nimaadno waxaan eegi doonaa transmission ma leeyahay si wuxuu uga taxadurnaa laba inaguma keenee ma gudbaa cudurkani dabcan wuu gudbaa halkuu ka soo gudbayba iyada laftigeedu su'aashaas ay isweydiin leh cudurkani wuxuu ka soo gudbayba waxa la dhahaa si waxa weeye food waxa weeye markaa seafoodka ama cuntooyinka inta badan waxa weeye Wuhan waxa weeye lagu iibinayay marketka Wuhan oo cuntooyinkaas maxay haayeen cunooyinkaas waxay ahaayeen runtii dadkan China la yiraahdo wax walba ay cunaan waa dad hawl badan runtii waxyaabaha ay cunaan waxa kamid ah baasha khafafiishta la yiraahdo oo luqada carabiga ay ku yiraahdaan waa baadka ama waxa weeye fiidmeerta la yiraahdo oo waxa ugu halista badan ama suspectiga ugu badan ee la qabo ama laga shakisan yahay uu yahay masasko kale runtii cunaan fayraskana wuxuu reserve year markaan leenahay fayraskana wuxuu inta badan kayd u yahay oo waxa weeye uu fadhiistaa ama waxa weeye marka inta badan hoos ugu yahay oo iska degaa xayawaanada ay kamid yihiin masasku baasha la yiraahdo baadka ama waxa weeye la yiraahdo fiidmeerta la yiraahdo daanyarada waxyaabahaas inta badan waxa kayd ku yugala dabadna waxa dadkii China waxa weeye waxaasay marka inta badan quudan jireen cudurku marka halku ka yimi inta badan originate ku waxa weeyaan waxay ka yimi waxa weeye shibraha ay cuneen waliba waxa ugu badan ee markii la hadda laga shakisan yahay waa fiidmeerta weeyaan taasa laga qaaday transmission ma leeyahay oo human to human ma ka gudbaa dabcan ha xanuunkani marka hore waa zoonotic disease dad maqasho waxa weeyaan waa xanuun ka soo tallaabay xayawaan una soo tallaabay ibn aadan xanuunku markuu ibn aadanka ka tallaabo waxaan leeyahay markuu xayawaan ka soo tallaabo ee uu ibn aadan u tallaabo ama ibn aadan uu ka tallaabo ee uu xayawaan ku noqdo ayaa waxa la yiraahdaa zoonotic diseases waa diseases that transmitted from animal to human ama human to animal labadaba inta badan u gudbaan waxa jira cudurro xayawaanku ay noo gudbin karaan way kamid yihiin TB-da neefkaagu hadduu TB qabo waxa caan oo la yaqaanaa waxa weeye caanihiisa haddaad cabto adoon iska karkarin inaad cudur ka qaadayso hilibkiisa si fiican haddaad u karinin waad ka qaadaysaa typically waxa jira cudurro brucella la yiraahdo marka inta badan lagu soo badan dumarkeenan aad dhaqanka Soomaaliya qaar way dhiciyeen lagu leeyahay 3 goor bay dhicisa ama 4 goor waxa ku dhaca ugu badan ee laga baadhaa brucellahuna wuxuu naga yimaadaa wixii aan oran jirnay marka waxa weeye xayawaanka waxaan u soo gudbay ibn aadanka marka cudurkan sida wax weeye la cadeynaya ama confirmed ka WHO wax weeye hay'adan la yiraahdo caalamka wax weeye u qaabsan caafimaadka wax weeye xaqiijinaysaa waxa weeye cudurkan wuxuu ka soo tallaabay marka xayawaan waa xanuunada marka zoonotic disease la oran jiray runtii markay kuwa cuneen ayay wax cudurkan qaadeen transmissionku marka wuxuu ku yimi cudurkan markii la qaaday dabadeed waxa jira cudurkan waa airborne disease waa cudurrada hawada lagu kala qaado cudurku markuu airborne disease yahayna cudurrada kale uu ka nugul yahay way dadku inta badan way wada hadlaan way inta wada fadhiisanayaan mid baa iska hindisaya inta dadku way salaamayaan marka transmissionka cudurkan waxa lagu sheegaa waxa la yiraahdaa waa through inhaling hawahaan baa lagu qaataa waxa weeyaan qof hadduu hindiso ama uu qufaco oo adag taagan tahay qofkaasina infected iyo cudurka qabo automatically cudurkan waad ka qaadaysaa waxa la sheegayaa sida imika laga dhawaajinayo xataa direct contact lagu qaadayo taabasho caadiya oo qof infected ah oo xanuunkan qabay way arki doonaa calaamadihiisa waxa kamid ah duriyo waxa siin badan inuu sii daayay qofkani markuu iska duufiyo ama inta badan waxa jirkiisa uu taabto waxa laga yaabaa inuu meel kale soo taabanin deedna markaad salaanto automatically waxa dhici doonta gacantaada inuu ku haro viruski deedna markaad wajigaaga saarto waxa dib markaa uu kugu talaabo transmissionkiisa marka waxa kamid ah in hawaahan aad ku qaadi karto in taabasho caadi aad ku qaadi karayso in hadii la leeyahay wada sheekayso qof wada sheekaysataan cudurka qaba laftigiisu aad ku qaadi karayso in dhibcahaasi afkiisa ka soo baxay hadii ay ku soo gaadhaan iyaga laftigooda marka aad ku qaadaysaa kamid ah markaan ku nimaadno marka habka wax lagu kala qaadayo cudurrada waxa jira ways ama steps baa laga eegaa marka cudur kasta la eegayo marka isaga laga soo warramo transmissionkii baynu ka nimimka wax weeye qaabku u gudbayay waxaan sidoo kale eegaynaa calaamadaha jira wax weeye qofka ibn aadanka ka muuqda marka cudurkan ku dhacdo calaamadaha marka laba loo qaybiyo ama sida imka wax weeye la ogaaday cudurkan wax weeye intii case-kan la baarayay la diagnosis lagu sameeyay shaybaarka lagu sameeyay waxa la ogaaday calaamadihiisu inay laba yihiin
waxa loo ogaaday calaamaduhu inay kala duwan yihiin marka hore waxbuu kugu soo gelayaa dadna brisaybatom ama ferrocysaymbatoms calaamadaha hore la yiraahdaa qolna waa xagga dambe waxa la yiraahdaa inta badan waxa weeyaan waa severe symptoms waa kuwa halista inta badan qofka dila ayna marka brisaymbatoms ama calaamadaha hore ee qofka ibn aadanka lagu garan karayo in marka cudurkani uu hayo dadkuna marka ay ka shaki karaan calaamadaha hore waxay shabahaan durigeenan caadiga soo durigeena garamaysaan typically durigeena ay shabahaan oo waxa la yiraahdaa inta badan waxa kamid ah qofka qufaca eegada qofka qufaca waxyaabo kamid ka waxa la mid ah qofka duufilay uu ka yimaado waxa kamid ah xumad iyo qandho qofka bini'aadanka qabata oo temperature-keenu waxa normal temperature-keenu waynu naqaanaay temperature-ka jirkeenu waxa weey waa 37 degrees Celsius hadii waxa uu dhaafo meelaha 3 sho qofka aad aragtay isagoo 48 maraya ama dhahdeen waxa weey 38 39 meelaha maraya automatically suspect waa tameynaysa wad ka shakiyaysa waxa kale oo kamid ah runtii inuu cunuhu xanuuno hawada uu jiidaya inay ku adkaato ama difficult breath inuu qofku waxa weey hawada uu jiidaya ku adkaato waa briefcase ama waxa weey brisaymbatomiska waa calaamadaha hore marka kuwaas haddii qofku shakiga uu iskala noolaado maxaa dhaca dabadeed waxa dhaca waxa weeye kuwa la yiraahdo waxa weeye severe symptom haddaad maqasho waa calaamadaha halista ah keenina kara waxa weeye qofka ibn aadanka inuu dhiman karo markaa qofkan waxa weeye calaamadaha hadday ka soo muuqdaan waxay u badan tahay qofkaasi inuu dhinto severe symptoms maxaa kamid ah severe symptoms waxa kamid ah inuu ku dhaco waxa weeye cudurkii pneumonia la oran jiray pneumonia haddaad maqasho waa cudurka la oo fureen cudurtan waxa inta badan caruur yahay ku dhacay inta badan naqaska qofka u dhajiya kuna dhacay waxa sanbabada pneumonia la yiraahdo fureen baa la yiraahdaa kaasa yimaada hadii qofka waxa markaa taban taaba iyo hawlo kale loo gali waayo severe symptoms waxa kamid ah waxa weeye calaamadaha halista ah ee qofka dhimashada ku keenayo kale waxa kamid ah waa difficult breath neefsashadii ku adkaata qofka hawada uu jiidayay oxygen-ta u baahnaa ee 2 minute ka bacdi waxa weeye ama 2 minute wax ka badan aanu waxa weeye markaa ku adkaysan karaynin waxa weeye waayeen hawadana ku adkaanaysa inuu qaato sanbabada waxa laga yaabaa area waxa weeye air sacs ka alveoli sanbabadu inay inta badan isxiraan markaas hawadu markaa inuu jiido way ku adkaataa taasina waxay keentaa dhimasho waxa kale oo kamid ah calaamad waxa weeye maalmaha la arkayay oo waxa weeye noocii aan idin sheegay markii hore inad ku lahaa berigii hore 2003 buu dilaacay inad ku SARS baa la yiraahdaa waxa weeye lagu arkay kana waxa weeye markaa calaamadan way kala siman tahay oo waxa la kidney failure waa kaliya qofka fadhiista kuwa laftigoodana waa lagu arkay waana runtii caseska keena marka kuwan dambe ka shakeynaya calaamadan dambe ku leeyahay severe symptom baa la yiraahdaa waa kuwa keena in qofka ibn aadanka uu dhiman karo markaas marka calaamadaha labadaas aynu ka nimaadno oo qaybta hore iyo qaybtan dambe waxa iyada laftigeedu is weydiin leh ma jira profession ilaa waxa weeye Allah ina abuuray waxa kan waxaynu kaga hortagno oo maalinka maanta aynu isaga caabin karnay ma jira sababta waxay oran jireen caalamka marka laga warramayo prevention is better than cure bay dhahdaan ka hortagga ka fiican daaweynta macnaheedu daaweyso cudurka la tacaasho waxa ka wanaagsan before intaanu kuba soo gaarin ka hor cudurkan inaad waxa weeye markaa ka sii hortagto way jiraan runtii ka hortagyo WHO runtii waxa weeye hay'adan la yiraahdo caafimaadka waxa weeye adduunka u qaabilsan runtii way bixinaysay talooyin badan oo runtii cudurka ku saabsan ay ka yihiin in qofku afka uu daboolo وكفرين ده وحوي موث مركا أفكار إنه قفك دبارة وايسليسين كفين مركا قفاعية وحوي مركا هندسات بتشرتو قفك إنه وحوي أفكار دبارة مركا لقولي أفكار دبار معناه ما هاي نتقعنتها صارتو واي واحد شراء أي وحوي مركا إسبيسي وحوي قعنتي كبرنامج باجرة لكن واحد شراء وحوي صبي يصيرون تيول لا فيس ماجو وواحد أنت بدنا خاطيرته مركا قلنا ذا قليان بس كلامكم مقرتيري أنت بدنا أفكار الجوح دويان كو كاوين لا استعمالها وين أفكار الجوح ده laba waa in laga dheeraada dadka waxay cudurka qaba taabashadooda dadka cudurka qaba laftigooda ama aad ka shakiday qofka cudurka uga shakisay inaad wax taabato waa inaad ka dheeraataa sababta waxa lagu leeyahay qofkan aad taabatay jirkaagan isma deynayaan gacantan iyo wajigani waxay u badan tahay qofkan hadaa marka taabato wax weeye in mar uun somehow wanada inaad si uun wax wajiga gacanta u saaraysa deedna wax weeye marka viruska uu ku gudbayo waxa sidoo kale wax weeye ka muhiim wax weeye in la iska ilaaliyo in wax weeye cunuhu marka soo qoyanaado waa talooyinka ugu badan ee la bixinayo ma taas leedahay cunahaagu waa inuu marka soo qoyanaado waxay ku leeyihiin wax xanuunkan wuxuu u nugul yahay qofka ibn aadanka marka wax weeye throatkiisu ama wax weeye cunihiisu darayga uu yahay adaatay wuxuu aad ugu nugul yahay markuu hawada jiida ama uu qaato in tibi kale cudurka uu toos u qaado sababta daraadeed baa la yiraahdaa waa qofku inuu biyo cab sameeyo maalintii waxay sheegayaan qofka adaltiga macna qaangaadhka wax weeye wuxuu cabayo ama biyuhu cabaya waa inay noqdaan bay sheegayaan waa 50 cc ama wax weeye marka 50 wax weeye cubic centimeter meelaha wax weeye wax gaaraya ama wax weeye 80 marka konton ilaa wax weeye 80 maalintii waa inuu cabaa meelaha litir wax ku dhow ka yarna
inta badan waxa weeye waa 30 ilaa 50 way sheegayaan cunahan inuu qalalaado waad ka ilaalinaysaa waa waxyaabaha preventionka ka hortagga cudurkan waxa weeye ka mid ka weyn waa sidoo kale waxa weeye preventionkiisa ka mid ah ama waxa weeye ka hortaggiisa waxa ka mid ah sidoo kale qofku waxa weeyaan inuu iska ilaaliyo waxa weeye dadkan hindisadooda iyo waxa weeye qufacyada markaa inta badan sameynaya ama goobaha waxa weeye waxaan ay ka dhow yihiin oo dhan inuu isaga dheeraado iyada laftigeeduna runtii waxa weeye waxay ka mid yihiin preventionka ama waxa weeye markaa ka hortagga cudurkan ay iyaga laftigoodu ka mid yihiin waayahay kolaynahaas markaa waxay ku kooban yihiin waa qaabkaad uga hortagayso cudurka kan waa qabaa sifooyinkaad markaa uga hortagayso cudurka kan ayay markaa ka mid yihiin sidoo kale waxaad cudurka kaga hortagi karaysaa mar kastoo aad waxa weeye cunto cunayso ama mar kastoo meel aad taabatay aanad garanahayn inaad waxa weeye markaa maydhato isla markaana waxa weeye gacmihii aad ku maydho saabuuntan inta badan dhitoosha la yidhaahdo ama waxyaabaha alcoholsha lagu sheego as a disinfectant waxaad doonaysaa waxa weeye jeermis dilayaal ahaan baad u isticmaalaysaa kuwa laftigoodana runtii waad samaynaysaa waxa weeye markaa tallaabooyinkaasi waa kuwaad markaa waxa weeye runtii kaga hortagayso cudurka kan waxaa jira markaynu halkaa kaga nimaadno ka ama preventionka iyo controlka aynu kaga nimaadno qaabka cudurkan laga hortago oo cudurkan laftigiisu yahay ama waxa weeye jira wax la yiraahdo treatment waxa weeye waa dawo cudurkan waxa la sheegayaa caalamka laga dhawaajinayo inuu dawo lahayn waxyaabaha keenay laga qayliyaana waxay sheegayaan inaanu dawo lahayn cudurkan sida caadiga ah waxa weeye qolada dhakhaatiirtu way taqaanaayeen cudurku hadduu viral disease yahay ama cudurrada viruska waxa weeye uu keenay yihiin oo dhani dawo sax ma la runtii waxay leeyihiin runtii kaabid qofkan in la kaabi karo oo maxaa la sameeyaa talow waxaanu naqaanaa dawo dhan waxa la medicine la yiraahdo dhan saddex kalaas ma loo qaybiyaa inta badan sheegay qolooyinka dhakhaatiirtii kalaas waxa la yiraahdaa pain relief ay dhacdaan oo kuwa waxa lagu sheegaa waa ka hortag waa dawooyin iyagu yaa oran waa pain relief ka kuwa sheegaysa waxa la yiraahdaa pain relief aan ku celiyo yaa oran waa ka hortag pain relief waa kuwa xanuunka naaqusa waa kuwa xanuunka iyagu ka kaxayn maayaan toos ka kaxayn maayaan laakiin xanuunkay hoos u dhigaan xanuunka ku haya haday xumo tahay haduu madax xanuun yahay waxyaabaha soo dhan kaar kasto ku haya waa kuwa hoos u dhiga kalaas kale labaad baa jira oo pain relief ka aan ahayn kuwa xanuunka ka kaxaynayaan ahayn kalaaska labaad waxa la curative medicine curative medicine ku waa dawooyinka sida rasmiga xanuunka ka kaxeeya kuwa inta badan antibiotics baa la markaa hadaba is weydiina antibiotics guyay daweeyaan antibiotics waa antibacterial waa dawooyin inta badan lid ku ah cudurrada bakteeriyada laakiin viruska may fayraska waxba kama qabtaan inta badan fayraska sababta waxba looga qaban waayay baa la yiraahdaa waa hal shay baa lagu sheegaa wuxuu leeyahay baa laba calaamadood antigenic shift and drift baa la yiraahdaa uu isbedbedelaa inta badan waa sababta duriga marka seen ugu dhaco duriga soo arkmaysaa waxa weeye 100 species baa keena orthomax virus baa keena isagoo waxa weeye kaliya intaas oo species baa ka hoos baxa marka maalinba mid baa kugu yimaada mid cabur buu keenaa mid kale qufacan keenaya mid duufka yare dareerka midhana ayuu buu keenayaa midba waa nooc sababta daraadeed baa maadaama uu isbedbedelayo viruskani way adkaatay dawo sax oo rasmi oo waxa weeye marka isaga lid ku in la soo saaro sababtaas marka waxa weeye caalamku uu sheegay runtii inaan jirin dawo sax ah laakiin waxa jira dadkan seen horeba u soo sheegnay malaha kala saddexaad baa harsanaayo dawada saddexaad baa inoo qaybinay qaybta labaad curative fenero waa dawooyinka sida saxda xanuunka ka kaxeeya inta badanna waa dawooyinka antibiotic lagu sheego waa inagii soo sheegnayo iyagu antibacterial waxa inta badan lagu la dagaalamaa cudurrada bakteeriyadu ay keenaan waxa beddelkeeda jira qaar iyagu la waxa weeye preventive medicine waa dawooyinka hortaga cudurku inta aanu kugu dhicin before ba laga hortagaya kuwana inta badan vaccine ama talaalka waxa la yiraahdo ayaa tusaale oo talaalka waxa marka lagu sii talaalo cudurkan kugu dhicin ka hor ayaa lagu sii talaalaya waxa lagu talaalayaana waa cudurka laftigiisii laakiin isagoo la daciifiyeen as a weakened waa isagoo daciif lagu mudeeyo bal waxa lagu mudeeyaa hamoodin wax kale waa cudurkii laakiin waa isagoo aan awood lahayn dabadna maxaa dhaca marka waxa lagu mudo lumuditaanka lagu mudeeyo wuxuu boosti gareeyaa uu kor soo qaadaa immunity-ga difaaca jirka nooca waxa la yiraahdaa acquired ama adaptive ka leeyahay kor soo qaada taas waxay keentaa cudurkan marka la soo geliyo jirka uu soo galo awood badan ma laha waa daciif dadna difaaca jirkaagu uu ka takhalusaa waxa ilaahay nagu nimceeyay waxa kamid ah difaaca jirka waxyaabo cajiibka kamid yahay waxa kamid ah shay walba la dagaalamay jirka information iyo data ka reeba difaaca jirkaagu waa xarun dhan ciidamada dhan bay leeyihiin oo waxa weeye damdamiskiile oo la waxa weeye duub castiile baasafilki neutrophilki hadii la leeyahay waxa weeye macrophageska kuwan waxa weeye big eaterska la wax laqa all those waxa things iyaga laftigooda classes leh waa dawladda weyn white blood cells marka laga sheekanayo dhiig cadi waa difaaca jirkaaga inta badan waana kuwa waxa weeye marka keena cudur kasta inay ka takhalusaan kuwana dawooyinkana waxa la prevention waa ka hortag cudurkan kugu dhicinba ayaa marka waxa laga sii hortaga marka bahalkani dawo isagu ma laha waana sababta keentay inuu caalamku ka qayliyo ilaa haddana caseski waxa weeye dhacay ilaa still hadda inay waxa weeye gudbayaan
gudubka inay gudbaanna waxaa keentay marka laga sheekaynayo epidemiology ama cudurradu soo inta badan u tallaabaan iyaga laftigooda la qaybiyaa cudurrada qaar waxaa la dhahdaa waa pandemic haddaad maqasho waa cudurrada waxa weeye qaarad ka tallaaba qaarad buu ka tegayaa tu qaarad kale u tegaya soo kale markay cudurradu faafayaan qaarkood waa epidemic baa la dhahdaa epidemic waxa weeyaan waa cudur waa luqa carabiya waxa lagu dhahaa wabaa waa cudur si aan caadi ahayn u faafaya waa saa daacuunka oo kale runtii dadkana wuxuu halis gelinaya markaas soo kale waxaa jira mid la dhahaa waxa weeye endemicku waa cudurka dadka iskala degan waxyeelada badan aan lahaynoo kaa durigaa ka mid ah cudurkan haddaba coronaviruska la dhahaa muxuu yahay isagu waa labadaba waana epidemic oo waa cudur halisa oo qaabku u tallaabayanu ka garanayo sida looga qaylinayo waana pandemic oo dee min qaarad buu isaga tallaabay iminka waxaan ognay in aasiya waxa weeye aasiya ka bilaabay sooma china waa aasiya waaweye wuxuu marayaa maraykan uu gaadhay yes exactly qaaradda america uu gaadhay oo yurub uu gaadhay oo faransiiska iyo waynu keenaa kaysiska waxa weeye canada wuxuu gaadhay wixii la odhan jiray haddii la leeyahay africa baan ilaa iminka wax sax laga hayn Thailand Singapore wax la xaasoo dhan wuxuu soo wadamada soo dhan u jeeday waxaad ku garanaysaa marka cudurkaasi inuu pandemic yahay cudurada marka qaaradaha isaga tallaabay inta badan waxa weeye wax dawaa ma laha laakiin waxaa jira wax la dhahaa supportive therapy dawo sax maaha dawo cudurka markay saa u gasho isagii la dagaalamaysa sidii antibiotiga maaha laakiin waxa weeyaan waa in qofka bini'aadanka immunity-giisa la soo boost gareeyo waxa kor loo soo qaado la improve gareeyo oo maxaa la sameeyaa talow cunooyin baa lagu siinaya gaar waxay bir dhaweed maalmo dhaweed sheegayeen oo waxa runtii good news ah warbixin fiican waxa in baashan la dhahaa garlic waxa weeyaan waa baashan toonta lagu sheego toonta waxa weeye haddii biyo lagu karkariyay bay sheegayeen dadkii cudurka qabay waxa weeye markii la siiyey wasay sheegayeen kaysiska qaar bay ku sheegayeen runtii in waxa ay galeen wixii loo oran jiray healing process bogsasho inay soo dareemeen soo caafimaadeen soo waxa koreen marka waxa jira cunooyin difaaca jirkaaga kor soo qaadaya gaarlika baashan la toonta la yiraahdo runtii waxa ugu badan ee kor soo qaadaya difaaca jirka marka taasa biyo ku lagu karkarnaya automatically kuwa saddex isticmaalaysa waxaan isweydiinaynaa intaynaan hadaba ka bixinayno kuwii kale ama qodobadii kale aynaan u tagin maxaa good news maxaynu maqli karnaa caaw halkan aynu kala bixi karnaa inoo manfacle ee wanaagsan ee coronavirus ka maqli karnaa coronavirus-ka waxa wanaagsan ee maanta manfacle aynu ka maqli karnaa waxa kamid ah bahalkani kuma noolaado temperature-ku kulul meelaha heerkulkoodu kulul yahay kuma noolaado waa waxyaabaha runtiina farxad gelinaya waana sababta keentay maanta Afrika inaanu saameyn badan wax ku keenin ama dhibaato badan aanu soo gaarsiinin iyo wadamada khaliijkaba oo wax inta badan laftigoodu way kulul yihiin waxay sheegayaan temperature heerkulku haduu gaadho waxa 65 oo 650 hadii uu gaadho heerkulku temperature waxa coronavirus ma noolaan karo coronavirus waxa viruskan la yiraahdo Kenya cudurkani ma noolaan karo bay sheegayaan oo iyada laftigeedu runtii waa good news waxa kale oo ina good news baashan alcohol la yiraahdo alcohol ma maanta khamrigi waxa jira waxyaabo disinfectant oo runtii inta badan dadku isticmaalo dhakhaatiirta iyo agaarkina laga helo lagu faraxasho inta badan dhakhaatiirtu ay isticmaalaan after surgery qalliinada ka bacdi kuwaas la isticmaalo waxay sheegayaan alcohol-shaasi hadii gacmaha aad ku soo qaado waxa laftiga viruskan 75% in waxa ay disinfectant u tahay ama ay dilayso waxa marka lafka kan waxa kamid ah runtii oo kale waxyaabaha ka adag de kulkan ay sheegnay marka maadaama China imika uu ku jiro xilliyadii winterka waxa weeyaan maadaama oo lagu jiro xilliyadii qaboobaha xilliyada inta badan qaboobihiina waxay keenaan coronavirus waxa meelaha dhulka qabow uu ku noolaada waa bahala inta badan waxa ku noolaada goobaha inta badan qabowga waa bahala ku noolaada weyn marka waxa inagu maadaama Afrika aynu nahay in kasto caalamka climate change uu ka jiro oo wax isbedel cimri ay jirto runtii haddana de inaga barafiyo waxba toona inaga madaan marka Mareykan oo kale runtii dadkii jooga waxa dadkeena waxa laga qaranay joogaane barafiyo ka day runtii jilaal hadii bay ku jiraan waxweyn marka waxyaabaha runtii keenay inaanu aad inoo soo gaarin waxa kamid ah waxay nacaawiyo heerkulkeenan waxaana sidoo kale WHO ay leedahay maadaama heerkulkiisu uu ka yahay qofku waxyaabahu cunayo quudanayo xataa preventionka sidii markii hore aynu dabagal leeyahay waxyaabihii hortaga kamid ah waxa kamid ah qofku inuu cuno karkarsan ama si fiican loo karkariyay cuntada la karkariyay waxa ku dhinta waxa marka wixii jeermiska loo oran jiray sawaan virus ha noqdo bacteria ha noqdo nooc doona ha noqdo marka waxa weyn maadaama 50 degrees Celsius waxaan uu yahay waxay sheegayaan biyaha ka karkarnayso waana 100 degrees Celsius ku karkaraysa waxa weyn 100 gaara biyuuna 100 gaareen maxaad ku karkaraysaa talo waxa keenay karanaad garato inuu waxani biyaha waxa temperature-kooda ama heerkulkoodii 100 degrees Celsius inuu yahay maxaad ku karkaraysaa haddaad aragto biyuuna u baxeen xaaladda biyo ku baxaan ay kaga tagaan liquid-ka kuna tagaan wixii waxa ku oran jiray solid-ka adka ay ku tagaan maya aan raahdo gas biyo markay waxa liquid-ka ka tagaan ee ay gaaska tagaan ee evaporate garoobaan heerkulkoodu waxa 100 buu gaaray wixii ka dambeeyay marka evaporation bay sameeyeen
marka inta badan waxa leeyahay shay walba wax diiran ku maydho oo ku farxalo markaad farxalanayso baashan alkoholsha ah isticmaal haddii la leeyahay cuntooyinka aad isticmaalaysa laftigoodu waa inaad wuxuu karkarisaa kuwa la karkariyo haday yihiin aan kuwa karkaday yihiinna waa inaad iska maydhaa cuntooyin baa jira iyagoo aan karkariso baanayn muuska iyo waxa kani cuntooyinkan inta badan fruitka iyo waxa qayb kamid ah vegetable-ku khudaarta iyo waxa qayb kamid ah waxa midhuhu uma baahna karkaris inta badan marka kuwaas oo kale waxa la sameeyaa waa la iska maydhaysaa ilaa xadin ma halka marka waxaan kaga baxnay baalkii cudurkii loo oran jiray coronavirus inagoo soo sheegnay goobta markii hore ka yimi oo ahayd waxa cudurrada waxa soo sheegnay xayawaanada soo sheegnay ay kamid ahaayeen baashan baadka la ama feedmeerta la sheego looga shakiyay bahalada snakeska la dhaao waxaan soo sheegnay transmissionkiisa qaab ku gudbo oo runtii direct contact qofka wuxuu cudurka qabo toos taabato waxa weeye inaad inhaling hawahaan aad cudurka ku qaadi karaysan sheegnay waan sheegnay qofku xanuunsanaya wuxuu taabatay hadaad ka daba taabato typically ida laftigeedu wax weyn ay keenayso runtii hadii aad ka farxalanin ama marka aad ka hortagin ama waxyaabo kale runtii aan sheegi jirnay alkoholsha loon jiray aad ku meedhanin inaad qaadi karto waan soo sheegnay calaamadihiyo laba aynu ka dhigno waxa calaamado hor iyo calaamado dambe oo niri kuwa hore iska caadi bay ahaayeen durigo kala abnoodaba sanka duufka dareeraya qofku waa qufacaya xumad yar buu yeelanaya dur caadi aad moodaysa laakiin xaaladaha dambe way isbedelayaan oo kuwii dhafka Kenya sheegaynay oo foreenkii baa ku dhacay pneumonia aakhirka kidney failure baa yimaada waxa timaada difficult birth waxyaabo imika China diray dadkii waxa sawirta markay aynu kamarada qaar meelaha lagu hayay CCTV waxa kamarada waxay qaadaysay dadka qaar iyagu taagan dhacaya naqas kana isxiraya aakhirka safarkiisa ama safar symptoms markay maadaan calaamadaha listi waan soo sheegnay waxa weeyaan prevention in laga hortagi karo waxa laga hortagi karaa waa afkaaga xidhatade maadaama cudurkan uu yahay waxa weeye inhaling ama la airborne disease yahay cudurada hawada lagu kala qaado afkaaga waa inaad face mask ku xidho waxaan la dhaafay face mask waxaan deynta badan dhaqaatiirta afka ku xidhan waa inaad samayso cuntada inaad ka karkariso wixii karkaris galaya oo waliba heer kul fiican aad ku karkarisade waxa kamid ah inaad waxa weeye wixii la oran jiray aad sameysatay waxa weeye hadii la leeyahay dadka xanuunka qaba inaad ka dheeraatay iyo goobaha ay tagayaan oo dhan inaad waxa weeye markaad cunto cunayso ama markaad wax taabateed ka shakidaba dhamaantood iyo laftigooda inaad markaa ka farxato treatmentiga waxa weeye waan sheegnay oo dawo ma laha baynu laakiin waxa jira wax la supportive therapy oo laftigeeda qofka bini'aadamka immunity-giisa si aanu qofkani waxa weeye markaa aanu waxyeello badan noqon markastoo cunto qofku uu cuni waayo loss of appetite ama waxa qofka cunto cuni waayo waxa keentaa immunity-gaagu ama difaaca jirkaagu inuu daciifade taasina maxay keenaysaa in cudurku markaa si halis ah kugu faafo waxaana la sheegaya cudurkan wuxuu u badan yahay hadaba fiirso dadka waaweyn iyo carruurta yar yar dadka immunity-goodu iska fiican yahay isla markaana isla tacaali karaya wax badan ma yeelay kiisaska ugu badan marka la dhintay marka wax weeye ugu badani waxay u badan yihiin marka carruur iyo dad waaweyn runtii maadaama labadaba immunity-gooda ama difaaca jirkooda ayaa marka runtii daciifa marka runtii iyaga waxa jira supportive therapy baasha toontaan idin sheegayo kale runtii waxyaaba keenaya in immunity-ga kor soo qaadaan cuntada waxa weeye saddexdood qofku cuno soo kale waxa la siinaya wixii aan oran jirnay pain relief medicine ko kale waa la siin karaa qof markuu xumada leeyahay waxyaaba marka dadkan cases-kan la hayo confirmed cases-ka waxa weeye kuwan cudurrada lagu hayo waxa dhakhtarada cisbitaalada lagu la tacaalaya la siinaya waxa la siinaya waxa weeye waa ka hortagun ama waxaan leenahay wixii la oran jiray pain relief marka qofka kale xumad baa haysa xumadana si ay uga jabto waxa la siinaya Panadol-kii eegada ama ibuprofen-kii baa loo dhiibaya ama waxyaabo kale la halmaalay marka kinnada raaya runtii pain relief-ka ka kaxaynaya xumadan way ma jirto dawo sax ah marka la siinaya waayahay marka bartaa kaga timaadno waxaan isweydiinaa su'aalaheennii kale ee marka muhiimka ahaa ay kamid ahaayeen waa hadda cudurka markaan bartaa kaga nimaadno waxaan isweydiinaynaa su'aalahan isweydiinayna waxa kamid ah ee pointiska waxa ugu muhiimsan waxa kamid ah ma yahay cudurkani wax la soo mareegay ma la oran karaa cudurkan waa assassination waa su'aal isweydiin leh waana su'aal keentay runtii in caalamka ay ka wareeriso isla markaana ilaa hadda looga shakisan yahay wadanka Mareykan la yiraahdo inuu shirqoolka maleegay qaabkee loo maleegi karaa see virus meelaha kale loogu beeri karaa waan isweydiinaa runtii waan ka jawaabaynaa waa la leeyahay runtii maalmihii cudurku u dhacay ee uu cusbaan in yar ka bacdi ninka Trump la yiraahdo hadlay deedna wuxuu yiri waxaan ku faraxsanahay xagga dhaqaalaha markaan ka eegno waxaan ku faraxsanahay waxa ku dhacay China cudurrada China ka dilaacay marka dhaqaaluhu wuxuu ka sheekeynay maadaama suuqa dhaqaalaha la isku hayo xagga dhaqaaluhu ka maray laakiin waxay keentay runtii dadku inay balaarugaan waxa jiray runtii 2011 film la bitaday oo la yiraahdo Contagion filinka Mareykanka laga matay waa 2011 baa la matay wuxuu filinkaas u dhacayaa sida cudurkan imka China uga dhacayo islamadu u dhacaya gabadh Mareykan baa timatashay iyadoo marka hore China joogtaa Hong Kong bay joogtaa cudurka waxay ka soo qaadaysaa xagga waliba waxay ka soo qaadaysaa baashan khafaafishta la yiraahdo ama waxa baadka la yiraahdo feedmeerta marka cudurka soo qaado toos waxay ku soo noqonaysaa Mareykan Chicago ay maraysaa iyo Minneapolis deedna waxa weeye filinka waa arki doontaa Contagion baa inta badan filinkaas waxa weeye cudurku
dadka u dilayo iyo noocan uu yahay baa typical uu yahay filimkaas markii aflaanta la dheehday waagaa wuxuu la daawaday iyo hadalkan wuxuu Trump waxyaabo badan ay sugayeen wariyaan arkayo runtii ruush ahaa oo wuxuu shalay meel ku arkay wuxuu sheegayaa in wuxuu bahalkan uu maleegyahay haddaba maleega marka la sheekaynayo sidee loo adeegsaday way isweydiin leh waxa jira dunyada waxa la bioterrorism waxa maqli jirtay terrorism Soomaa terrorism wuxuu ahaa irhaabi waxa soo irhaabi Soomaa maqal waa isqarxiye waa naftii hore waxay oran jireen inta badan muslimka lagu eedeyn jiray waxa jira adduunka waxa la bioterrorism in English markan symbol ku sheegayno waxa la dhahdaa waa biological weapon ama biological weapon waa hub nool baa la dhahdaa imika inta badan waxa la isku garaacayaa de waa chemical weapon oo nuclear kan yahan kana ka daran nuclear noola la soo qaadaya ardo fiirso caalamka wuxuu yahay kiisaskan xilliyo horena waa ka dhaceen noolahan cudur halis uu keenaa waxay sheegayeen bari dhexdaas iyaga laftigooda in la adeegsado biological weapon ama wuxuu yahay hub nool in la adeegsado waxay sheegayeen bacteriadan la xidhaa wuxuu yahay Brussels abortus ama la yiraahdo antargaska la yiraahdo antargaska cudurka la kudba la yiraahdo Soomaalidu inoo garanaysan waa cudur halis inta badan xayawaanku ku dhaca ama xoolaheenu ku dhaca dadkan uu gudbi jiray bacteriada keenta ayaa la soo qaaday deedna waxa la keenay bay yiraahdeen kayd meel qaaraba waxa lagu kaydiyay dabadna waxa waa la sii daayay sida waxa hubka loo ridaya deedna true air hawadaas ay ku qarxaysaa waxbana waxa wax qarxayo waxba toona ma yeelanayso dabadna waxa markay baxdo maadaama waxaan microorganism iyo gibilkan hawadu galaya maxaa dhacaya khalqigii barta ku noolaa inay true air ku qaataan Soomaa ila oxygen bay qaadayaan Soomaa jirto dad waxay keentay dhibasho badan keento waxay sheegayaan markaa oo imika China laftigoodu taagan yihiin dad badan oo kamid ah iyo waxa caalamka qayb kamid ah waa la garanayay inuu China cuno waxan baashan baadka la yiraahdo fiidmeerta la yiraahdo waa la ogaay inuu cunayay waxan la yiraahdo waxa weeye masaska iyo waxa kan ilaa iyaga laftigoodu cudurku ka yimi qolooyin iyagu markaa waxaan jiray spyga ama basaasina ayaa laga yaabaa inay meesha tageen dadna waxay sameeyeen inay mudeenba ama ay talaaleen waxa kan cudur waxa weeye bahalahan la cunayo suuqdan lagu bahalay inay ku talaaleen deedna maxaa dhacay dadkii toos bay u cuneen waxaan ay cuneen waxa ku talaalan oo ku mudan waa maxay waa biological weapon ama waxaan ku jirnay bioterrorism ku sheegi jirnay virus laftiisa waa ku talaalan deedna waxa keentay marka cudurka in la qaado dabeedna tabtu filinka dhulku uu haawanayay ee waxa weeye wadamada iyo waxa weeye hadii la leeyahay wadooyinku haawanayeen baa imaka wadooyinka Wuhan ama magaalada caasimada Wuhan la yiraahdaa ee gobolka Hubei ka tirsanay ayuu haawanaysaa marka inagu horta judgment garan mayno oran mayno xukumi mayno oran mayno waa sida laakiin 80% marka aad eegto suuqa waxay isku hayeen marketka qolooyinkan Mareykan iyo waxa weeye China deeto si waxa weeye hoos loo rido imika waxa la sheegayaa 50% waxba maray ilaa shalay waxa weeye update ku dambeeyay 6% waxa weeye suuqiisa hoos u dhacay way caalamka marka soo laga karantimeeyay China la marka karo indha yar baad aragto waad boodaysaa waad araraysaa marka indha yar baad aragto waxay keentay in wadanka sal laga xidha marka borderiskii oo dhan xuduudii oo laga xidhay waxay keentay wixii waliba gobolka Hubei ka imanayo dhan halkooda lagu hayo hatta iska daayay dadkeenii Soomaalida ama dadkii kale wadamada kale ee ka imanayay iyaga laftigooda la hubinaya waxaan maqlayay runtii Mareykanka kale uu kala xusimay dadku soo qaatay ee safaarada waxa China ku talay Mareykanka laga soo qaaday waxa lagu hayaa steel xerooyinka militariga loo baneeyay dhiyuna waxa la sameeyay 14 days baa la diinaya dadkan halkaas xerada lagu haynaya 14 days hadii calaamadu ka soo ifbaxaan oo dadkan waxa cudurkii lagu arko calaamadihii cudurka halkaas lagu haynaya Mareykan dib loo soo gelin maayo hadii waxa weeye dad caadi ah yihiin wadanka waa lagu soo deynaya waa waxay intimo criteria ha isticmaalayeen runtii si dadka u kala gartaan kuwa cudurka ay kuwan garanayn inagu Allah inoo sahlay qalabna ma haysano meel dadka ku takoorna ma haysano ganacsatada markay doonaan way iska tagaan way iska soo noqdaan Allah inoo sahlay marka waxa weeyaan cudurka laftigiisu waa inoo karnaa waa bioterrorism waa inoo karnaa waa assassination waa inoo karnaa ama shirqool waa inoo karnaa waxaan isweydiinaa kale runtii cudurkan ma inoo soo talaabi karaa dabcan hadduu Hindiya iyo Singapore iyo Mareykan tagay oo Yurub oo dhan uu tago Faransiis marayo Canada marayo waxa ku diiday inaga ku imaado cudurkan waa pandemic waa cudurrada waxa runtii ka soo talaaba qaanada oo kala talaaba oo iman kara ala saynaguma keeno waxyaabaha good news ka caaw halkan ka qaadano waxa kamid ahayd heer kulku hadii waxa 56 ama waxa 6 uu gaaro waa tan runtii kuma noolaan karo waxa baalkan coronavirus kala kuma noolaan karaba dadkeena halka ka imanaya runtii waxaan waxa weey marka leenahay war markay horta imanayaan bariyaga laftigoodu dadkooda ay dhex marayaan ilaahay baa waxa inoo gargaareen ugu qalabna ma hayno cudurkan waxaan kula tacaalanay beeshanay gelinna ma hayno dhaqaatiir runtii rasmi oo waxa hawl badan ka qaban kareysana ma hayno iska daaqal waxa wax kale waxayna heli kareen qalabkii lagu baari lahaa way marka waxa qalabada lagu baaray diagnosis lagu sameeyo kamida PCR
waxa kamid ah eelaysada bahashan la yiraahdo kale ma hayno kuwa laftigooda qayb kamid waa laga yaabaa inay helo laakiin kuma badna sheekhana marka ilaahay baan leenahay ilaahay baan ka tawakkal saarana laakiin cudurkaasi waa inoo soo talaabi karaa ugu dambeyn gabagabadii waxaan isweydiinaynaa war dad islaamayna inagu talow maxaa inagu meel yala ama inagu talow maxaan aaminsanay maadaama islaam nahay runtii inagu waxaan aaminsanay in cuquba min cuqubaat ilaahi yahay cudurkan ciqaab xagga rabbi ka socota ilaahay xigtaabkiisa kulli oo ma ya'lamu junuuda rabbika illa huwa junuuda wax weeye rabbiga uma garanay cid aan isaga ma taqaano laftiga fayraskan waxaan oran karnaa waa loo diray China haddana inagu islaamna xagga sirkiisa yaagina inagu assassination ka yeegmayno meel kale ka yeegmayno sababtu waxa weeyaan dadkii goorka haayay dhibeen Turkistan tabani dad baa ku noolaan jiray islaam oo badan oo ciida ka badan dibkay u geysay manogin way takooreen jirdil bay ku sameeyeen way torture gareeyeen way garaaceen hadii la leeyahay waxay yiraahdeen dhaqan cilmi mar ku sameeyna dhaqan cilmi ma garas waxa laga dhaqan cilmiya waxay ahayd waa diintii baa laga dhaqan cilmiya sometimes waxay ku sheegeen diinta laftigeeda waxay kiisa qaar sheegeen in waxa weey liidiba waxa jira waa virus ba diinta laftigeeda virus iyaga nooc kala marka eeg ama Mareykan ha loo soo maro Mareykan ku talaalo ama ilaahay ka dhex dilaaciyay inagu waxay aaminsanahay ama waxaan belief kareenaa waxaan waa cuquba min cuqubatillah ilaahay baa ku subax weey marka ku saliday eegada wama rabbuka bidallaamin lil abiid samayn ayadi ilaahay waxay adoomihiisa ma waxay ma dulmiyo waxay geysteen baa jira dadka ducaadii markii la dhibay salaadoodii bay ku duceysteen qofka daalimta ayna waxa weeyaan qofka daalimka ahina ee waxa la dulmiyay ducadii soo mustajaab Soomaa yes inta soo khalqi markay ilaahay bariyeen cuquba kala ku timi maxay keentay maanta in China laftigiisa la takooro Soomaa hadee in China laftigiisa isagii la karantimeeyo oo meel gaar ah lagu hayo oo China laftigiisa laga shakiyo oo la maxaad ahayd oo indha yarba hadii la arko xataa ka Japanka imka aad aragto ee adigu China haysanaysa indha yarba aad aragto ka boodaysa war naga joog baad leedahay nooyman waxay keentay in dhaqaalahoodii hoos u dhaco waxay keentay inuu qayliyo eegada oo uu dhaw dadka islaamka ay duceeyaan oo kii shalay wax weey amri yeelaa la garaa inagu marka waxaan aaminsanay islaam ahaan inay cuqubo wax rabbaaniye tahay cudurkan waxa ilaahay wadiisana